to hide standard icons, to display standard icons, to change standard icons picture. cashirkan ayaa waxaan ku qaadanaynaa sida loo qariyo iconska computerka uu ku imaaday, sida loo soo bandhigo, sida sawirkooda loo bedelo ayaan cashirkan ku qaadan doonaa insha allah daqiiqadaha soo socda. markuu horeysa halkan bannaan ayaan istaagaynaa, waxaan ku leenahay right click. inta aan dhihin kuwa aan ka hadlaynaa kuwaan weeye 1 2 3 4 5 wey. okay, waa standard iconska computerka oo ku yimaado. marka halkan bannaan imaad, right click ku dheh, personalize, halkan usoo dhaqaaq, themes, halkan dhankan imaad, desktop icons settings. waa kuwan intaa tigta ay saarantahay dhammaanteed ka qaad. waxaa leedahay apply. okay, banaanka u bax. maxaa yaala waa la qariyey. halkan xabaa yaalo oo asigana combi wax ku yimiday. marka si aan usoo bandhignaa isla wadadii aan ku laabahaynaa, waxaa leenahay right click, personalize, themes, desktop icons. waa kuwaan marka tigta soo sii. kadib waxaa leenahay apply. okay, dib u laabo banaanka aad. waa la socday. waa kuwan soo uma jeed. waxaan ka bedelaynaa sawirka saaran oo kalarkooda iyo sawiradooda ayaa wax ka bedelaynaa. right click, isla meeshii aan maraynaa. themes, desktop icons, waxaa leenahay change icons. waa kuwan halka aan marka hore halka wax ka bedelaynaa. this pc aan noo dooran, calaamadaas saar exta ah. okay, calaamadaas saar this pc. halkan hadana taad user fileka, calaamadaas saxda saar. ayaana noocaas saasay noqotay. halkan imaad, tan saar. intaasaa nagu filan. inta kale adaas sii habeynaysid. apply. okay, banaanka u bax. soo ma jeedin network, user files, this pc. waxyaabahan ayaga waa la bedelay. marka isla meesha kusoo laabo si aan usoo bandhigto. themes, desktop icons, calaamada tartiib ka qaad. marka waxaa leenahay apply. okay, banaanka u bax. waa kuwaan waa la soo taabamayno. cashirkan halkaas ayaan ku joojinaynaa. inta cashirkan cashir la mida aan kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.